Bismillahi Rahmaani Rahiim. Ugu horreyn dhammaanba Soomaaliyeynta ku taxan channelka Somali Forex Traders oo salaamaya. Salaan ka bacdi maanta waxaan rabaa videogan inaan ugu duubno da'yarta ama dhammaanba bulshooyinka Soomaaliyeed ee ka shaqeysata suuqa ganacsiga xorta ee forex trading sida loo isticmaalo MetaTrader 4ka. MetaTrader 4ku saa ogtihiin waa application muhiim ah oo aan la'aantiis aysan waxba ku dhaqaaqayn. MetaTrader 4 waa application-ka buluug ah oo MetaTrader 4 ay ku qoran tahay. Ugu horreyn application-kan intaadan isticmaalkiisa aan u gudbin ka hor waxaan rabnaa inaan soo dejino oo aan tagno Play Store-keena. Waxaan rabnaa application inaan soo dejino ka bacdi aan barano sida loo isticmaalo MetaTrader 4ka. MetaTrader 4 kaas MetaTrader 4 demo account MetaTrader 4 kaliya igu qor. MetaTrader 4 waa kaas application kaas Play Store-kaaga kala soo degaysa. Halkaas install baa dhahaysa. Aniga hadda wuu soo degsan yahay, open baan dhahayaa. Open markaad tiraahdid saas isugu soo furaya. Aniga hadda waa ii furan yahay. Waxaan rabaa marka aad la soo degtid waxaa ka furanaysaa demo account intaadan real account-ka ka furan. Demo account waxa weeye waa account fake ah ama aan run ahayn oo qofku intuusan real account-ka samaysan uu ku sii tababaranayo ama uu lacag been ah uu ku sii samaynayo. Marka sidee baad u furanaysaa account-kaas demo account-ka? Saddexda dhibcood baad tagaysaa. Manage account meesha ay ku qoran tahay baa ku dhufanaysaa. Ka bacdi calaamadda plus-ta baa ku dhufanaysaa. Open demo account meesha ay ku qoran tahay baa taabanaysaa. Ka bacdi halkaas broker raadinaysaa. Tusaale ahaan IC Market-ka halka inoo saaran oo kale IC Market Demo 1 IC Market Demo 2 midub baa ku dhufanaysaa. Demo 3 baan ku dhufsano. Okay, halka macluumaadkaas baa la rabaa in adiga magaca ku qoratid. Halkaas name-ka ku qoranaysaa. Halkaas name-ka ku qoranaysaa. Tusaale ahaan magaca kale halka aan ku qorto Cabdi Cali oo kale halka ku qoranaya. Halkan number-kayga ay ku qoran. Halkan email-ka ku qoranaysaa. Halkan waa muhiim waxa weeye waa account type-ka waxa weeye account type-ka nooca uu yahay waa laga rabaa inaad ku qoratid meesha US inta badan dooro. Account type-ka ICM/ECN/USD. Leverage-ka inta badan waxa ka dhigataa 1.500 ka dhigo. Lacagta deposit-ka 3,000 ugu yar ka dhigo. Inta badan 3,000 baa laga dhigtaa. Ka bacdi create account baa oranaysaa. Create account markaad tiraahdo account-kaaga uu ku samaysan yahay. Sidaas uu kugu samaysan yahay account-kaagii. Sidaas account-kaaga kugu samaysan yahay. Cabdi Cali ku dhufo. Marka aad ku dhufatay halkaas aad tagaysaa waa ka aragtaa balance-ka kugu jira waxa weeye waa 3,000. waxaan rabnaa haddaba inaan sii barano gudaha maxaa ku sii jira. Halkan marka aad timaado waxaan rabaa lacagaha sarka waxa kugu jira 7 lacagood kaliya kugu jira 6 lacagood kaliya kugu jira. Waxaan rabaa lacagihii kala dhan inaad soo gashatid. Plus-ta taabanaysaa. Meesha ay Forex Miners ku qoran tahay baa ku dhufanaysaa. Forex Miners tan u sareysa Crypto 2 meesha ka hooseysa Forex Miners ku qoran tahay baa taabanaysaa. Ka bacdi waa kuwa lacagihii oo dhan mid walba waa ku dhufanaysaa automatically iyada meesha soo gelisa. Dhammaantood waan ku dhufanayaa si ay ugu soo wada galaan oo ku dhameynayaa ilaa ta u dambaysan ku dhufanayaa. Ka bacdi account-kayga ku noqonayaa. Waa aragtaa lacagihii oo dhan baa igu jira. Okay, haddaba markaad suuqii soo analyze garaysatid tusaale halka waa chart-igi uu ka tusayaa lacagihii. Waa chart-igi suuqa shaxankiisa la soconayd hadda euro USD way halkaas. Halkan indicator-kan RSI baa la dhahaa. Okay, shaxanka iyo dhammaantood waxa uu gudbeynaa sideen u sharxi lahayn suuqa analysis-kiisa iyo waxaas oo dhan. Laakiin maanta muhiimaddan waxa weeye inaad baratid guud ahaan sida loo isticmaalo MetaTrader 4ka. Okay, lacagiiba halka kugu jira. Lacag baa ku dhufanaysaa tusaale ahaan ta u sareysa AUD USD aan ku dhufanayaa. Marka aad ku dhufatid marka aad rabtid suuqan inaad gashid new order baa leedahay. New order markaad tiraahdid waxya 4 qodob baa ugu muhiimsan oo la rabaa inaad hadda shaashada ku buuqato ka baratid. 4 qodob ugu muhiimsan waxa weeye lambarka halkaas 0.02 madowga ugu sareeya muxuu yahay. Lambaradan 4 0 ee bidixda xiga maxay yihiin. 5 0 ee midigta xiga maxay yihiin. Bay iyo selka hoosta ku yaalana maxaa loola jeedaa. Okay, intaas ku soo gabagabeynaa kaas ugu sareeya waxa weeye waa lot size-ka aad suuqa rabtid inaad ku gashid. Lot size-ka
aad rabtid inaad suuqa ku gashid. yacni akoonkaaga markay $100 kugu jirto oo kale 0.01 tusaale ahaan baa lot size ku ah oo aad rabtaa inaad suuqa daqiiqadaa gashay aad ku gashid. 0.01 halkaas aad dhiganaysaa marka waxaan dhahayaa 0.01 halkaas aad dhiganaysaa. halkan waxa weeye waa stop losskii tiradan shantan zero ee bidixda xiga waxa weeye waa stop losskii suuqan, waa khasaarahaagii meesha, waa lambarkii aad khasaarahaaga ku xakameyn lahayd. iyadana wuxuun baa dhiganaysaa lambarka markaa meesha ku yaala baa dhiganaysaa. tanna waxa weeye waa take profitkaagii, isagana lambarka markaa take profitka rabtid inaad ka gaartid baa sharaxaynaa. dib baa ka sharaxaynaa iyagoo aan toos u arkayno waa maxay lot size, waa maxay take profit, waa maxay stop loss, waxaas oo dhan. sellka iyo bayga maxaa iyagana loogala jeedaa? sell iyo baygu iyagana waxa weeye suuqan ma bay baa rabtaa inaad u gashid mise waxaa rabtaa inaad u gashid sell tusaale ahaan. waxaa rabtaa inaad u gashid sell tusaale ahaan. haddii aad suuqa inaad sell u gashidna sell baa ku dhufanaysaa. haddii aad bay inaad ku gashidna bay baa ku dhufanaysaa. haddii aad inaad bay u gashidna kaasoo kale hadda bay baan u galay, khasaare 0.01 abaan hadda ku jira waa aragtaan. faa'iido 0.01 khasaare 0.01. okay, marka aad rabtid inaad xirtidna close order baa aranaysaa. saanaha waa xiraysaa close orderka u sarreeya inta isaga tuujisid marka hore close orderka ugu sarreeya ku dhufanaysaa. kabacdi hoos baa close with profit, close with loss 0.01 baa ku xiranaysaa. okay, waxaan u malaynayaa inaad fahanteen guud ahaan inta ugu muhiimsan ee marka la isticmaalayo applicationka MetaTrader 4ka. aad baa mahadsantihiin. waxaan idinka rabaa inaad videoga share garaysaan, like saartaan, channelkana aad subscribe inoo saartaan. Thanks.